iyadoo maalintii salaasada aynu ka soo gudubnay meelo badan oo dunida ka mid a laga xusay maalinta caalamiga ee gudniinka gabdhaha ayaa Somaliland waxay ka mid ahayd meelaha isu imaatinka munaasabadan lagu qabtay taasoo ay ka qayb galeen dawladda hay'adaha caalamiga ah ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale daneeyayaasha kale munaasabadan Somaliland ka qabsoontay ayaa kaga duwaneed kuwa kale oo mandaqada ka qabsoomay iyadoo wasaaradda diinta iyo aqoonta ay halkaasi kaga dhawaaqday fatwo ay soo saartay oo gudniinka gabdhaha ka dhan ah iyadoo ay muddo badan runtii soo noqnoqotay ka hadalka iyo hadal haynta gudniinka fircooniga ee hablaha arintaas runtii laga soo bilaabay 1991 la hadal hayay inta kadib runtii wasaaraddu waxay qaadatay go'aan ku saabsan ama fatwo aan iraahdo ku saabsan arintan FGM-ka iyo gudniinka hablahaba waxayna runtii soo saartay qodobadan hoos ku xusan in gudniinka habluhu ee sharciga ah yahay mid waajib ah iyadoo loo gudayo hablaha qaab waafaqsan shariicada islaamka sida ku cad nusuusta iyo shaaficiyada ama nusuusta iyo madhabteena shaaficiyada ee laga dhaqmo dalkan Jamhuuriyadda Somaliland laba waxa xaraan ah oo dambi ah in gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ee kor ku xusan kaas oo dhaliya ama keena googoyn toltolis sida gudniinka fircooniga iyo wixii la mid ah saddex gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga waxa yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba intuu la eg yahay magdhow gabadh loo geystay afar qof kasta oo ay ku cadaato inuu ku kacay gudniinka loo yaqaan fircooniga waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba intuu la eg yahay gabadh uu geystay shan wasaaradda diinta iyo awqaafta Jamhuuriyadda Somaliland waxay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada rayidka ah iyo kuwa dawliga ah ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ee loo yaqaan FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan oo ka soo baxday wasaaradda isla markaana ay ka feejignaadaan in ay cid kale oo gaar ah ka qaataan fatwo aanay ogeyn wasaaradda diinta iyo awqaafta geesta kale dalada ka hortaga gudniinka ee Somaliland ee Nafis oo ah dalada ay ku midoobeen 20 urur oo ah kuwa rayidka waxay qayb ka ahayd dadaalada loogu jiro in gudniinku noqdo mid guud ahaanba laga dabar jaro Somaliland agaasimaha fulinta daladaasi Cabdiraxmaan Cusmaan Gaas ayaan weydiiyay sida ay fatwadan ay soo saartay wasaaradda diinta iyo awqaafta u arkaan iyo macnaha ay ugu fadhido bulshada Bismillahir Rahmaanir Rahiim fatwada shalayta ay soo saareen wasaaradda diinta iyo awqaafta ururada bulshada rayidka oo ay hogaaminayso Nafis Network meel cad baan runtii iska taagnay maalintii 5tii bisha maalin ka hor maalintii culimada soo saartay fatwada ururada bulshada rayidka waxay u doodayeen u hadlayeen uga shaqeynayeen inaanu helno wax lagu dhameeyo ama lagu baabiyo dhammaan noocyada uu leeyahay gudniinka gabdhaha sababtoo ah waxaan aragnay nooca ay wasaaraddu ay lafteedu inuu dadkeenu ay u yaqaanaan sunnaha dadkeenu u yaqaanaan inuu isaga laftiisa dhibaato far badan lagu geystay marka fatwada ay culimadu soo saartay runtii waan soo dhaweynaynaa laakiin waxaan isleenahay wali halka waxay u baahan tahay in la sharaxo sunnaha ay culimadu soo saartay wuxuu kaga duwan yahay sunnaha ay dadku yaqaaneen marka horeba lagu googoon jiray xubnaha taranka ee haweenka marka guud ahaan waan soo dhaweynaynaa waa tallaabo hore loo qaaday waa tallaabo lagu yareynayo dhaawacii faraha badnaa ee loo geysan jiray haweenka waa tallaabo runtii fududeyn karta in laga hortago wax kasta oo goyn ah ama tolid ah oo lagu sameeyo xubinta taranka ee haweenka adna aadan oo ah qofka ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ka hadlay gudniinkan gabdhaha si furan waxay tii 42 sano ka hor ayaanu soo bilownay 42 sano ka hor inaynu halkaas soo gaarnaa waxay noogu fadhidaa runtii wax weyn ama tallaabo aynu hore u qaadnay oo weyn maxaa fadwadani xiga iyo halkee loo dhaqaaqayaa goorma ayayse hirgelaysaa waa weydiimaha ay bulshada Somaliland qaarkood is weydiinayaan ee arintani la xidhiidha waxaana VOA uga jawaabay agaasimaha dalada Nafis fadwadani runtii waxa lagu dhaqan gelinayaa xeer hal siyaasadda waxa gacanta ku haysa wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo haweenka siyaasaddaas noqonaysa waxa fasiraya horta qodobadan ay culimadu soo saareen waxaana lagu fasirayaa in qodob kasta la sharaxo sida loo fulin karo sida macquul looga dhigi karo inay bulshadu fahanto sida loo fududeyn karo fahankeeda iyo fulinteedaba marka runtii waxaan rajaynaynaa in siyaasaddan imka gacanta lagu hayo wasaaradda shaqo-gelintu ay gacanta ku hayso in lagu faahfaahiyo qodob loogu faahfaahiyo oo ay noqoto waxa fasiraya fatwadan culimada marka siyaasaddaasi waxay hortagi doontaa golaha wasiiraduna runtii waxaan ugu baaqaynaa inay waajibkooda ka gutaan ay siyaasadda fuliyaan oo meel mariyaan siyaasaddaasi marka la meel mariyana waxa ka dhalan doona runtii in xeer ciqaabeed la sameeyo
barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa.